xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa maanta waxa uu soo gabagaboobay kalfadhigii 16aad oo muddo 2 cisho uga socday xarunta dawladda hoose ee degmada Gabiley waxa kaga hadlayeen isla markaana lagu ansixinayay 2 qodob oo kala ah oo daraska miisaaniyadda 2019 iyo toobaleynka loo sameeyay magaalada Gabiley. haddaba kalfadhigii lagu ansixinayay miisaaniyadda ayaa waxa ka soo xaadiray 19 mudane waxa ogolaaday miisaaniyadda 2019 oo ansixiyay 16 mudane halka uu hal mudane uu diiday hal mudane oo kalena uu ka aamusay gudoomiyuhuna muu codayn. sidaasi ayay ansax ku tahay miisaaniyadda 2019 kalfadhigiisa una lagu ansixinayay master plan-ka loo sameeyay magaalada Gabiley ayaa waxa isaguna ka soo xaadiray 20 mudan 18 mudane ayaa u codeeyay in la fuliyo oo lagu dhaqmo qorshaha master plan-ka hal mudane waa uu ka aamusay gudoomiyuhuna muu codayn. sidaasi ayaa lagu ansixiyay master plan-ka loo sameeyay magaalada Gabiley. haddaba master plan-kan ayaa la bilaabi doonaa sida uu sheegay duqa magaalada Gabiley horaanta sanadka 2019 waxaana warbaahinta uga warbixiyay kalfadhigani gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxaana uu yiri waxaan ku guda jirnay doodda iyo falanqaynta 2 qodob oo kamid ah howlaha kalfadhiga 16aad ee golaha deegaanka Gabiley korfeeyay. labada qodobka koobaad wuxuu ahaa master plan loo sameeyay magaalada Gabiley. qodobka labaadna wuxuu ahaa miisaaniyaddii 2019 master plan-ka aan u sameeyay magaalada markii ugu horeysay golaha deegaanka Gabiley waxa fadhiga goobjoog ka ahaa 20 xildhibaan oo kamid ah golaha deegaanka 20 ka xildhibaan 18 kamid waxay u codeeyeen in la hirgeliyo oo la fuliyo oo lagu dhaqmo qorshaha master plan-ka ee la sameeyo. hal xildhibaan oo kamid ka aamusay gudoomiyuhuna muu codayn. sidaas buu ansax ku yahay master plan-kii ay nagu sameeyeen magaalada Gabiley oo runtii inta badan in culayska ku saari doono isticmaalka dhulka waxa loo yaqaan layuuska fulintiisuna sanadka 2019 ay noo bilaabi doonto. miisaaniyadda runtii alaaba 2019 miisaaniyaddeeda golaha isleega kadibna iyadoo lagu xisaabtamayo miisaaniyaddii 2019 lagu gudbaabo miisaaniyadda 2019 fadhiga lagu ansixinayay miisaaniyadda 2019 waxa goobjoog ka ahaa 19 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka. waxa ogolaaday miisaaniyadda 2019 oo ansixiyay 16 xildhibaan hal xildhibaan u diiday hal xildhibaan oo ka aamusay gudoomiyuhuna muu codayn. sidaas ay ansax ku tahay miisaaniyaddii 2019. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadeen gobolka Gabiley.